بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم وبركاته كسو دوادا جانالكينا باريس ميديا caawa waxa aynu kaga hadli doonaa xaaladda xeraale iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo lagu wareejiyay hub iyo ciidan intaba ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa muddooyinkii dambe waxa uu booqasho ku joogay dowlad goboleedka Galmudug qaybo kamid ah ra'iisul wasaaraha ayaa maanta waxa uu booqasho ku tagay deegaanka xeraale halkaasi oo maleeshiya beeleed halkaasi deganay ay ku wareejiyeen 12 gawaarida nooca dagaalka ah iyo 500 oo rag ah goobta ay wareejintu ka dhacday waxa ka hadlay qaar kamid ah maleeshiyaadka iyo senatarada aqalka sare ayagoo sheegay in ay ammaan u yihiin dawladda Soomaaliya kana doonayaan in amnigooda la damaanad qaado gaadiidkan iyo ciidankii saarnaa waa 12 gaari oo noocyada kala gedisan oo hubka wata gaadiid fara badan oo aan qaran ma ahan munaasabana leh waxaan galabtay munaasabadan gaadiidkan iyo ciidan 500 askari ah ku wareejinaynaa ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed iyo wasiirka amniga iyo mudnaanta taliyaasha ciidamada iyo dhammaan qaranka qaybihiisa kala gedisan annagoo ah mas'uuliyiintii iyo wasiiradii degmada Xeraale iyo senataradii iyo xildhibaanadoodii kusoo dhawaada ra'iisul wasaaraha ugu faraxsanahay galabtay mas'uuliyiinta intaan leego hogaaminayo ra'iisul wasaaraha qaranka inay noo yimaadaan waxaan ku wareejinaynaa sida wasiirkuba uu sheegay gaadiidkaas noocyada kala duwan leh oo qayb kamid ah maanta qabaa'il Soomaaliyeed oo haysta uu jirin oo ay kamid yihiin beebayaashu ama gaadiidka gaashaaman waxaan ku wareejinaynaa qaranka Soomaaliyeed waxaan ku wareejinaynaa wasiirada dawladda waxaan ku wareejinaynaa ra'iisul wasaaraha waxaan codsanaynaa amnigayaga iyo xifdigayaga iyo wanaagayaga iyo nabadayada in dawladdu la wareegto waxa aan hayno oo hubana ay nagala wareegto wabillahi tawfiiq taasna farxad kale ay noo tahay waxa kaliya aanu sheegaynaa waxay tahay aanu codsanaynaa mar kale ra'iisul wasaare ilaah ka sokow adiga iyo dawladdaada ayaa mas'uul ka ah ammaanka waddanka kan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ka gudoomay ayaa damaanad qaada codsigii maleeshiyaadka sheegayna in ciidamadaasi la qarameyn doono halkan waxa igu soo dhaweeyay wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo senatarkii aqalka sare waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo inay nagu soo wareejiyeen baabuurtaas ciidamada ah oo gaashaaman oo ilaa beebayaashu ay ku jiraan oo qoryo saaran yihiin oo ay yiraahdeen waxaan u soo milkiyeynay dawladda Soomaaliyeed iyaga iyo ciidankii saarnaaba dawladda Soomaaliyeedna ay ka gudoontay halkan on faraayo taliyaha xoogga inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu soo diro dad una yimaado gawaaridan sidoo kale ciidanka halkan jooga in la qarameeyo la diiwaan geliyo tababarkii u baahan yihiin la siiyo magaaladan amnigeeda ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kala duwan ay sida ugu dhaqsaha badan uga howlgalaan amaanadan waxa idin imaan doona wafdi ka socda taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed inta uu ka imaanayaan waa ku simaysan laakiin halkan waxaan rabaa inaan fariin uga diro shacabka Soomaaliyeed aan raado waxa meeshan ka muuqda maanta waa tusaale ah dawladnimadii Soomaaliyeed oo hana qaaday tusaale mudan in talaabada walaalahay reer Xeraale ay qaadeen lagu daydo dawladuna ay ballan qaado inay dadka reer Xeraale oo soo hibeeyay hubkii ay haysteen dawladdu ay amnigooda ka shaqeyso barnaamijkeeni gaarka ah ayaan caawad kaga hadlaynay booqashadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ku booqday deegaanka Xeraale halkaas ayaynu ku soo gabagabeeynaa caawa inta aynu ku kulmi doono barnaamij midkaan lacayna sida iyo nabadgelyo fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka Baris Media subscribe saar gambaleelkana taabo si aad ula socoto siyaasadda amniga waxbarashada mahadsanid